kufsiga meesha ay diinteenu geysay ama ciqaabkay ka dejisay reer galbeed iyo dhaqan gaalo oo ka dejiye ma jiro waa oo markii gabadha la kufsado waa in isagana rajmi la sameeyo oo dhagax lagu dilo qaabka in qofkiina la dilo gabadhiina ay meher yeelato dhaawaceedii oo dhan ay maxaan ku raahdaay dhaawactir laga siiyo ii sheeg iyagu gaaladu waxay maxaan ku raahdaay ay sharcigan ay ku sameeyaan qofkii dambiga gala waxay sameeyaan waa xabsi qofkii in dhagax lagu dilo in xabsi la geeyo kaba la qaato كيلا قاتورت نو وليبا ميل أي دت كردن دعوان يا لجور رجمية واحد أوران كرتان هذا كمبليت لسان لومو وده دقنجلية دين دي محاك كجالك محاول دقنجلي لسان مرك سومريا شوكتار ما ذحبت تهيني ما دقنجلي لسان دين تيني إله إنسية يدا ما دقنجلي لسان يدا أوبهنتيني يدا وجه effective سنة ما تشرت وحاسي كوفسي جوجود شرا أو سيد الصوت مركي قبري الله كوفصده sida Soomaalidu ugu xumaato waad garanaysaa sida markii chance lagu helo loo ciqaabo waad garanaysaa laakiin ma u baahanahay xeer gaalo ama cid khaas ah inoo dejiso oo aan diinteena waafaqsan ma u baahanahay mid kale arinta kale muhiimka waxa weeyaan Soomaaliya tobokumaankum problem iyo dhib baa ka jiro oo ay u baahan tahay in la xalliyo aabaha caruurtiisa oo kufsada ilmo yar oo dhaga ul problemka eeg pointiga horta bal haba laga hadlay horta ma baka jira Soomaaliya muxuu yahay aabaha kufsanaya ilmihiisa kufsanaya muxuu yahay ma billioniska problem iyo dhibaato ka jirta mi xallo waa inta halka laga raadinayo oo malaayiin dollar lagu bixinayo xeer waxa laga dijinayaa maxaan ku raadaay markuu aabuhu kufsado ilmihiisa oo kufsado ma jireen qoliyaha xitaa ugu badan oo maxaan ku maxkamadaha waa la weydiiyay nama soo marin bal arrinkaas soo ka oo baan problema aan bajirinba Soomaaliya ka jirinba intaad billions lagu bixin lahaa halkii maalin ama halkii bil ayaa kumaanku boqolaal qof ku dhimatay taama wax laga qabto nabadgelyada gaajada dadku ay u dhimanaya ma wax laga qabto dayci silci iyo saxariirka ma wax laga qabto no ma jirto waxaas taa laba rabo in wax laga qabto wadaha reer galbeedka hadday ku tala galaan ay daacad ka tahay Soomaaliya problemkeeda inay xaliyaan 1 hour kuma qaadanayso amar kaliya wada siin karaan kulligiin waxa la oran karaa walax wixii maamul la sheegto is wada khilaafsan oo dhan hal daqiiqo miiska isku yimaada hadii la yiraahdo wallahi mid diidi kara inuu jirin 1 hour dagaalka wada joojiya hadii la yiraahdo mid diidi kara ma jiro laakiin lama rabo taas in la taabto taas madmuuma dhinaci akhlaaqda ayaa rabaa in dadka laga baabiyo